walbo aan ninkaas ah inaad ka hortaga aad damco waxa isoo hor istaagayo adduunku waxa ugu xun adigu qof walaalka dhigtay haddana lagu soo dibmaray laga jabsaday soo yacni dadka soo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa laga dilayaa maskaxda iyo caqliga wallahi soo yacni u fiirso dhalinyarada Soomaaliyeed qof walba wax qabsada in la dhibaateeyo oo waxa weeyaan qof xun laga dhiga si loogu shaqaysan karo shalay waan aragnay oo asigoo waxa weeyaan dhalinyaradiisa saxaabtiisa ku dhex jiro dalkiisa iska jooga fuusto loo soo riixay fuustadii wuu iska difaacay laakiin cuqdad iyo waxa weeye xanuun iyo nacayb buu ku beeray soo hadda gabadhan bal rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yani ninka naagta qalbi jilcana waxa waaye toorta soo maalmuhu isku ekaa waqtiyadan kala duwanaa danimaan yaabin baa wuxuu yiri waan yaaway ninkan daahir cali suulahayo ee gabadhan Sundus waxa la isku haysto wax baa ka horeeyay waxay tahay fanaan hadda waxa waaye dharka tuurtay oo waashay baa waqtiga caafimaad qabay oo ninka waalayna waa daahir ninka nolosha karidayna waa daahir gabadhan hadda aan qabyaalada aqoonin oo Soomaalinimada ku weyn oo qof walba ee abooy abay leedahay buu waxa weeye sunta qabiilka uu dure sidoo ku durina waa si waxa weeyaan xanuun badan maanta adduunku waxa ugu xun adigu qof walaalka dhigtay haddana lagu soo dibmaray laga jabsaday soo yacni dadka soo dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa laga dilayaa maskaxda iyo caqliga wallahi soo yacni u fiirso dhalinyarada Soomaaliyeed qof walba wax qabsada in la dhibaateeyo oo waxa weeyaan qof xun laga dhiga si loogu shaqaysan karo shalay waan aragnay oo asigoo waxa weeyaan dhalinyaradiisa saxaabtiisa ku dhex jiro dalkiisa iska jooga fuusto loo soo riixay fuustadii wuu iska difaacay laakiin cuqdad iyo waxa weeye xanuun iyo nacayb buu ku beeray soo hadda gabadhan bal rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu yiri yani ninka naagta qalbi jilcana waxa waaye toorta daahirow falkan Sundus aad ku sameynayso waxa waaye yoomul ayaam waxa waaye haddaysan maanta noqon yoomul ayaam maaragtay luguydad waad arki maxkamadaadana waxa weeyaan daarigu dadka daawada maahay dadka ku taageera maahay dadka ku mucaarada maahay soo anigu waxaan ku arkaa bulaacad waxaan ku arkaa yacni qof dhalinyarada mucaaradku waxaan ku arkaa qof yacni xalaasha diidan xaaraantani raba soo sababtan ku leeyahay waxay tahay qof aanan ku haysan baad lugahaada ku doonatay ma fahanti si qofka oo ku imaadana waxyaabo badan buu soo sameeyay hadday noqoto xalaal iyo xaaraan ba soo marka caawiya daahirow adiga iyo waxa waa aakhiradaada kulay waxa waaye aniga adduunyada waan ka laabtay oo nin wax og baan ahay nin wax fahansan baan ahay nin dhaqamada adigoo kale yaqaan baan ahay ma fahanti leema gaado qof iimaankiisa dhameystiran yahay waxa waaye marba hadduusan qofka iimaan lahayn waxyaabo badan baa ka suurtooda soo daahirow waxa waaye qof walbo wax buu tabishtiisuna hadday noqoto xumaan waa dhibaato soo Sundusay waxaan ku leeyahay bayoy YouTube-kaas haddaadan waxa waaye damac adduun uusan ku wadin waxaan ku leeyahay forogid iska dheh Soomaali baa garabkaaga qabiil ha u gooyin xumaan ha u gooyin nacayb ha u gooyin YouTube hadduu wax u tarayay waa xoolaha adduunyo qof iimaan leh noqo iimaan haddaan kuu sharaxaad kooban aan kuu siiyo waxa waa iimaan waa rumeyn qoto dheer oo qalbiga ka timaada oo lagu qanco kuna kalsoonaato Allah iyo waxa uu faray waa iftiin ku degay qalbiga kana dhiga qof mid degan sabar leh ka fahantay rajo fiican leh kana fog xumaanta
dee iimaanku waxaa ka mid ah rumaysnaanta alleh, malaa'igta, kitaabada, rasuulada, qiyaamaha iyo qadarinta. waxaan ku leeyahay Sundusey walaalay, waxaa waaye taxadar, naftaadana ilaali. dalkan iyo dadkanba waxaa kharibay waa cajuus iyo cajuuso. dee intaad cajuus iska ilaalin karta iska ilaali, intaad cajuusan ka fogaan karta ka fogow. waa iga talo. jiilka waxaan leeyahay jiilsadow, indhihiina fura, weerar baa idinku socda. jaw anigu waa abuubalad. waxaa waaye halkaad naga daawanaysaan waa